بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات جنكين قاعمة فران في قلبي صافية وإدين سو دوينا يا صومالي وين وأنا إدين سلام يا ملو بتجوكتان مالي ونكسن ما أنت موضوعين وحا وكسابسين هاي waxyaabihii aniga maxay ahaatay i anfacay ee sanadkii lasoo dhaafay adigana inay ku anfacayaan hubaal waay waxyaaba aada i anfacay waxyaaba waxaa jirta mararka qaar anaga haddaa bini aadan nahay aan dheheen waxaas aan qiil u sameynayn saan maahan saas waa ninkareen oo aan rabin inaan maqalno oo ah koow dhageysashada codka gudahaaga oo aadan iska indhatirin dhageysashada codka gudahaaga oo aadan iska indhatirin. biniaadanka subxaana watacaala wuxuu sii dareemo qarsoon ayaan leenahay oo gudaheena cod ayaa gudahaaga waxa uu ku leeyahay meeshaas ka joog marka codkaas uu kuu sheego waxaa laga yaabaa dadka mantiqa iyo caqliga inta badan ay adeegsado inay leeyihiin waxaas shaydaan leh waa waswaas waay waxaanaan arkayaa ama ii muuqdo wax wanaagsana ii muuqdo qof hebel oo kaleento qofkaas ka joog haddii lagu dhaho kaleento gudahaaga uu diido inaad ka joogtid meel hebel oo kaleento ka joog gudahaaga haddii lagu dhaho inaad ka joogtid oo codka gudahaaga kasoo baxaayo aadan iska indhatirin oo aad dhageysatid aadna rumaysatid. codkaas cod sax waaye oo aan been kuu sheegaynin qofka keliya oo maxay ahayd aan ku qadalaynin oo aan maxay ahaatay khiyaano iyo lagooyo aanay kaaga imaanaynin gudahaaga waa adiga naftirkaaga waay marka codkaas inaad aada u dhageysatid oo aadan ku dabaq inaad dhageysatid codkaas oo aadan iska indhatirin oo aadan dhihin waswaas waaye khaasatan codkaas marka uu kugu soo laalaabto markuu dareenkaas uu bixinayo uu kugu soo celceliyo inaadan iska indhatirin. tan labaad aniga maxay ahaatay oo aan bartay oo maxay faa'iidadeediina aan arkay inaan nafteyda waqti siiyo aan siiyo nafteyda waqti ka badan waqtiga aan dadka kaleenta aan siiyo gudaheyga inaan siiyo faa'iidadeeda amba natiijadeediina waa arkay oo waqtigeyga inta badan xataa teleefon ha ahaato xataa dad qof walbo inta aan waqti siinayo inka badan ayadaan siinayo sanadkii lasoo dhaafay nafteyda waqtiga ugu badan ayadaa la qaatay inaad adigana aad sameysid natiijada waa arkeysaa natiijada waxay noqonaysaa mid ku raaligeli doonta ayay noqonaysaa waayo naftaada markaad waqti siisid meesha maxaa soo galaya inaad siisid jaceylkii ay u baahneed waxaa soo galaya naftaada inaad dhistid cilmi ahaan aqoon ahaan inaad dhistid oo waqtigaagii uusan kaa lumin faa'iidadiisii aad heshi inaadan ku beerdareyn waxyaaba maalaa yacni qiila iyo qaala bilaaya saan dhahday iyo hebel saan dhahay aadan ku dhumin waqtigaaga oo in badan adiga aad isgelisid oo waqti kugu filan xataa waxaad helaysaa hurdadaadii aad hurdidaad helaysaa waqti kugu filan inaad hurdid ayaad helaysaa maasha allah tabaaraka allah waqtigaaga isgeli adiga dadka ma lagu dhahaayo gooy rixim gooyska ma wanaagsana xataa dadka oo dhan lama gooyo laakiin waqtiga kan ugu badan naftaada sii wax muhiim waaye faa'iidadeedana waa arki doontaa waxyaabaha waxaa waaye subxaan allah dadka ma fahamsan laakiin haddaad fahantid waxaa waaye qof waxaad noqonaysaa nafteeda ama naftiisa horumar gaarsiiya ayaad noqonaysaa markaad naftaadii aad waqtigaaga in badan aad gelisid koow adaa isbaranaya faa'iidada ay leedahay adaa isbaranaya haddaadan is aqoonin dad badan inaan is aqooninaa jiraan dad badan waa is aqooninaa jiraan qeybaha anaga o dhanna bini aadan ahaan qeybo waxaa jirto aan ka nahay majhuul ama aan ka nahay warmoog oo anaga gudaheena nafteena qeybtaas ayaa baranaysaa waxa adiga ah in badan ayaad baranaysaa naftaada oo inta aad warmooga ka tahay amba aad indhala-aanta ka tahay ayaa yaraanaya markaad in badan naftaadii aad waqti siisid ayadaa baranaysaa cilmigaad gelinaysaa waxbarashadayaad gelinaysaa cibaadooyinkaagiyaad gelinaysaa يعني فائدة وين أكو جرت مركب وقتيجاga naftaada in badan geli inta aad dadka kaleente aad gelinaysid tan kaleente
oo aniga aad ii anfacday adigana ku anfaceyso in aadan qofna ku tashanin. qofna hubaal inay aad ii anfacday inaan qofna ku tashanin, kaalintuu doono nolosheyda ha kaga jiro. qoraalkii aan qoray waaye buggeyga qoraalada maalmihii u dambeeyay sanadkii cusub, yani waxyaabihii aniga nafsiyan wax badan waaye, laakiin qayb ka mid ah adigana ku anfacayo ayaan kaaga soo qaaday. oo waxaan dhahay hubaal inay aad ii anfacday inaan qofna ku tashanin, kaalintuu doono nolosheyda ha kaga jiro. adigana aad ku anfaceysaa taas, in aadan qofna ku tashanin noloshaada, kaalin walba ha ugu jiro, qofku doon ha ahaado, inaad adiga isku tashatid. ilaahay subxaanahu watacaala caqligu ku siiyey, maskaxuu ku siiyey, in maxay ahaatay talada koowaad iyo tan labaad adiga naftaada ahaata aad isku tashatid. haddii ay tahay dhaqaale, inaad baratid sida wax loo soo saarto, aad shaqaysatid, aad naftaada aamintid, ilaahayna aad tala saaratid. dadka waxa loogu tashto horta in badan risqiga waa sooma, risqa waay. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلهي أساق الله سبحانه وتعالى قف والبو حوله إي حيوان إي بني آدم والبو وإلهي خلقي رزقي جود أساق كفال قاد السمدان لغا كفال قاد مركا محا نفتاد إناد آمن ويسد وحواي جلاع ليتان عاد سليديتو نوع والبطاي نفتاد آمن، نفتاد إناد آمن تتوحي وحاد كبد باديسا مالمها كميتا إن meel cidla ah lagaaga dhaqaaqo. waxaad ka badbaadaysaa naftaada markaad aamintid in adoo baahan, adoo jaban, adoo maxay ahayd si bini aadan oo duruufeysan, adoon meel iska bixin karin in meel cidla ah lagaaga dhaqaaqo. laakiin markaad naftaada aad aamintid, aad isku tashanaysid, qof walba noloshaada ha ku jiro, hadduu rabo ha ku caawiyo, hadduu rabo laakiin adi isku tasho. adi anaa isku tashanaay dheh, hubaal ku liibaanaysaa. waxyaabaha aadka fiican waa oo la tijaabiyay oo maasha Allah tabaaraka Allah. qof walbo oo naftiisa ku tashtay qof wuxuu noqday horumar ayuu noqonayaa, waana noqonaynaa insha Allah biidnillaahi kariim. horumarkan wuxuu imaanayaa markaad adiga isku tashatid, markaad adiga awoodaada aad aamintid. xataa waxaa soo baxaysa awoodo badan oo ku qarsoon oo adiga xataa aadan aqoonin ayaa soo baxayso. tan kaleente oo afaraad, farxad ama caawin aan qof kale siiyo inaan ka helayo farxad dheeraad ah. sax mar walba taas waa la ogyahay, laakiin markaad qof caawisid oo xaqan qof baahan, qof dhiban, qof maxay ahayd aad awoodid inaad caawisid oo wax malmuus wax waxtar leh aad u sameysid, hubaal naftaada inay farxayso. xataa aysan ahaanin wax malmuus oo waxtar asaga u leh, oo waxtar wax walba waxtar u leeyihin qofka baahida heeso. laakiin caawinta aad caawinaysid mar walba waxaa qurux badan inay ahaato caawintaas see qofkan aasaaskiisa loo see qofkan uga baxaa marxaladan oo ugu gudba, aad jidkii aad tusisid, aad ku caawisid inuu u gudbo marxalad kaleente, oo mar walba uusan ahaanin qof la caawiyo ah oo mar walba u baahan in la caawiyo. caawinta ugu sax ugu wanaagsan taas waaye. waayo qofkii haddii maalin walba gacanta uu kusoo taago aad wax siinaysid lacag yar aad siinaysid ma ka baxaayo wixii maalin walba heerkii u taagnaanaya. maskaxiyan inaad dhistid, inaad maxay ahayd aad wixii awoodaad ilaahay ku dhiiweyn aad ku caawisid, aadna tusid jidkii uu ku bilaabi lahaa, aaday ugu qurux badan tahay. marka farxad ayay ku siinaysaa in aad caawisid qof kale. caawinta aad caawinaysid qof kaleenta waxaad ka helaysaa farxad dheeraad ah, weliba maahan farxad caadi ah. waxay leedahay farxad gooni ah, waxay leedahay dareen gooni ah oo raaxa ah ayay leedahay. subxaana watacaala